dumiya waariyo soo aheediyo dhagax buur darada bulaano nugutood soo baxay oo baxka taagay loogu taliyey ana waxaan ku taamaa balayna wadaagnaa aygateeyaashaba ku soo dhawaada barnaamijkan oo ka mida barnaamijyada taxanaha ee idinka imanaya deegaanka Soomaalida waxaanu maanta ku sugannahay magaalada Dhagaxbuur magaalada Dhagaxbuurna waxa weeye magaalo madaxda gobolka Jarar oo ku yaala dhinaca galbeed ee deegaanka Soomaalida astaamaha ugu caansan ee magaalada Dhagaxbuurna waxa kamida haanta biyaha oo la sheegay inay tahay meesha ugu caansan magaalada Dhagaxbuur magaalada Dhagaxbuur iyo gobolka Jarar waxay ku yaalaan dhinaca galbeed ee deegaanka Soomaalida haddaba magaaladan iyo astaanta magaaladaba waxa iga waramaya Axmed Maxamuud oo Axmed Tinish loo yaqaano oo kamid ah ragga ugu caansan ee magaalada Axmed aad iyo aad baan ku salaamayaa waan ka qaaday Cabdisalaan Hereeri magaaladan taariikhda kale aniga ay leedahay Axmed qudhiisuna uu xusuusiyo waxa kamid ah in 25 sanadood ka hor bishii December 1995 ay ugu dambeysay magaalada Dhagaxbuur jawigii bariga jiray Axmedow iyo kan maanta balka war bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxa la yiraahdaa Axmed Maxamuud Aadan waxaan ku magac dheer Axmed Tinish waxaan ku barbaaray magaaladan waxaan ku dhalay magaaladan waxaan xil badan ka soo qabtay magaaladan adiga qudhaaduna oo ku dhalatay Soomaa qudhaaduna oo ku dhashay waxaan kamid ahaa qaybtii ka casta haaya magaaladan Dhagaxbuur waxa ku nool dad badan oo ka soo jeeda dadka Soomaalida qabiil walba aadan dadkaas waxa loo yaqaan ilkaas maxaa loogu bixiyay Axmedow markaa ilkaas waxa loo yiraahdaa magaalada dadka ku dhashay dhammaan way ilkaastaadaan wayna kala gasan yihiin qabiil ma laha magacooda qabiilkii waa ilkaas rag iyo dumar bilkaas baa loo yaqaana hadii aan ka warramo taariikhdeeda magaalada Dhagaxbuur waxa la aasaasay 1920 meelaha la aasaasay hadda way markaa waa sanad guuradii boqolaad waa sanad guuradii boqolaad sanad guurada boqolaad magaaladaas boqolka sano jirtay colaad badan bay soo martay hadii aynu ku yara noqono Axmed oo astaantan magaalada halkana ugu caansan baa la ii sheegay waxaanay ka mid tahay meelaha su'aalaha la iska weydiiyo marka dadku baasaboorka dalbanayaan ama qofku uu sheeganayo inuu reer Dhagaxbuur asal yahay haanta waxa la dhisay waqtigii dhergiga la dhisay haantan waxay leedahay lugahay ku taagan tahay baa la isweydiiyaa halkay ka taallaba la isweydiiyaa baasaboorka marka la qaadanayo reer Dhagaxbuurka halka la weydiiyaa waa haanta biyaha kaydka magaalada u qaybsan imsa lugood bay leedahay marka 5 lugood bay leedahay reer Dhagaxbuurka maqlaa halla haystaan waa 5 lugood bay leedahay laakiin badana dadku waxay yiraan 4 lugood bay leedahay haaya waa ku aan garanaynin markaa miya waa ku aan garanaynin marka saasa lagu gartaa inay reer Dhagaxbuur asal ah marka maadan garan baa lagu yiraahdaa Axmedow magaalada Dhagaxbuur dadka degan intee lagu qiyaasay magaalada Dhagaxbuur dadka degan maxaa aduta sanadkii 10 sano mar baa la tirakoob la sameeyaa ilaa 100,000 iyo 130,000 baa 10 sano ka hor ahaa laakiin hadda dadkii way soo noqdeen magaaladii dad bay qaad lahayd 10 sano dadkii joogay labalaabkii baa hadda joogaan 400,000 way gaadhaysaa dadka magaalada degan marka laga tago haantan waxyaabaha kale ee magaaladu ay caan ku tahay maxaa kamid ah magaaladu waxay caan ku tahay guriga gobolka xafiiska gobolku waa guriga Talyaaniga la dhisay Talyaani baa la dhisay maxaa xafiiska degmada isna Talyaaniga baa la dhisay xafiisyo fara badan oo qadiimi ah jira inta hadaba aanu ku jirno barnaamijkan idinka imanaya magaalada Dhagaxbuur Axmed baa dabcan hogaamin doona ama Axmed Tinish aan ilaahdee Axmed Tinish maxaa lagu bixiyo horta Axmed Tinish anuu dadka ragga badan deegaanka u dhashay waa rag dheer Axmed Yare ayaa la bedelay Axmed Yare ciyaalkii aan iskuulkooda dhiganayna Axmed Tinish bedelay marka Axmed Yare kugu yeeray Axmed Tinish Axmed Yare ayaa Axmed Tinish labadaba waa isku mid ka magacan Dhagaxbuur muxuu ku baxay Axmedow magacan Dhagaxbuur halka toga jarareed meeshu mara dhagaxyaal aad waaweyn baa jira marka dhagaxyaasha waaweyn baa Dhagaxbuur loogu bixiyay halkan maadaama nisayd halkaas loogu bixiyay nin Arab ah kulli magaalada ugu horeeyay oo degay nin Arab ah ugu horeeyay baa tiri oo degay magaalada ugu horeeyay oo degay marka jaaliyada Arabta ahayd
wax ma ka sii joogaan weli jaalada carabta way ka sii joogaan tafsiir waxa ka sii joogaan dadkoodii way degan yihiin magaalada hanti badan oo ku leeyihiin weli waxaan ku sii soconnaa qaar ka mid ah odayaasha taariikhda magaalada Dhagaxbuur haya oo Axmed uu noo tilmaamay Axmed laakiin haddaan adiga su'aal kale ku weydiiyo magaaladan aad ku dhalatay ku barbaartay ku dhaqantay ilaa imika aad ku nooshahay taariikhda intaad adigu haysid isbeddelka ugu weyn ee magaalada ku dhacay maxaad ku tilmaami lahayd magaaladan xadaaradeeda ama ganacsigeeda ama ilbaxnimadeedu badanaa waxay ku xidhan tahay magaalada Hargeysa la yiraahdo waatay magaaladan waa magaaladii la yiraahdo xagga ganacsi ahaan bay isku xidhan ganacsi ahaan iyo xagga bulsho ahaan baan isku xidhannahay waatay magaaladan waa magaaladii la yiraahdo magaalo dhalaad Hargeysa Dhagaxbuur dhalaad waatay muddadan imika isbeddelkan ugu dambeysay dadkii soo noqday meel walba ku jiray ama colaad ha ku tagaan ama sababo kale ha u tag dibadaha u tagaan waa la soo wada noqday dadkii reer Dhagaxbuuraha magaalada meel fog bay maraysaa waa la dhisanayaa waxa la sheegay Axmedow in magaaladan ay leedahay lahjad u gaar ah oo ay kaga soocan tahay deegaamada kale ee Soomaalida lahjadaasi maxay tahay lahjadaas waa af Sawaaxili qayb Sawaaxiliga iyo qayb afkii oo la isku dhex taray qayb Sawaaxili nooga timid xagaas ilka aso xagaa tagtay qaybtii af bay noo sameysay afkii sida u shooradka la isu dhiibaan loo sii dhiibay waanu ku hadalnaa waatay marka bal hadda tusaalayga si iska waran oo kale maxaa loo kuchumaachi baa tahay imika adiga oo kale kuchumaachi baa tahay kuchumaachi waatay oo ayba badmoodila kuchumaachi badow baa tahay weeyaan absalan xariiro ama kuchumaachi baa tahay ama borami baa tahay borami way borami maxay tahay waa badow baa tahay weeyaan waatay marka lacagta waxa la dhaafeedo hiiga badankii tisan ma joogaysaa waatay ninka halka fadhiya ma taqaan weeyaan igu celi hadaynta hiiga badankii tisan ma joogaysaa way ya waa ninka halkan fadhiya ma taqaana oo marka deegaamada kale idima fahmayaan marka ku wada hadlaysaa deegaamada kale ma fahmayaan marka anagu khadka kor uga baxayna sida taarka ciidanka kale afkaasan gala waatay marka odaygiiba halkan nagu sugayay odayaasha magaalada ugu aansan ama taariikhdaagi deegaankan magaaladani soo martay mid kamid ah oo maqtal Cabdiriid leeyahay ragii jabaadii 77 oo gaabinayna kamid ah oo xanuunsan in kastoon xanuun ka dareemayo ayaa nagu sugay halkan dunia wariyo so ahediyo Dhagaxbuur darada bulano ugu soo baxay oo baxka taagi السلام عليكم مختل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سلام يا سكورنا. سو لمون أكسر. ما شاء الله. أهلا وسهلا. سو الله في عنا. مختل. أدي أدبارو فرح سرينا كلنا. أدبارو فرح يانا كأركو. وحلايش يا جاي. شو مكان كذا إن في عدي هرتمادو. هاي. وحلايش يا جاي. يمكن بس هذينا كذا وني. هذا ويتو. وحلايش يا جاين أنا ملود الجلين Dhagaxbuur baan tagayo maqtal maan arkin markaas aan kuugu nimi waxa la ii sheegay taariikhda magaalada inaad qayb nool ka tahay magaaladan Dhagaxbuur waxa la ii sheegay in boqolkii sanadood ay jirtay inaanay 20 sanadood oo isku xiga marnaba nabadgelyo helin adigu halkeed kala soo bilowday marxaladaha anu waxaan kala soo bilaabay taariikhda wax waa ka maqlaya taariikh waxana waxaan u soo joogay waxyaalo ana qayb ka ahaado ka qayb qaatay marka ilaa iyo maxaan ku yiraahdaa dhowriye 60kii ee waan soo noolaa oo si fiican baan ku garanaya waxaan ka qayb qaatay iyo waxaan joogayba marka hadda nabadgelyada magaalada haddaan taariikhda kaaga bilaabo dagaalkii koowaad ee adduunka markuu dhamaaday 2 sano ka bacdi baa la bilaabay horta oo 1920kii meelaha way Dhagaxbuur lama oran jirin way xidlibaax baa la oran jiray xidlibaax way meel libaaxu meeshii magaaladu ka soo bilaabantay taariikhda bartankeeda santarka meelaha iyo ka soo bilaabantay magaaladu intaas oo marka waxa meel libaax uu karo oo libaax inta meelaha ka duulo oo halka ku karo xidlibaax baa la oran jiray baadiye xoolo ka cabaan oo yaalaan way oo yaalaa 26 harar tagay tijiga marka wadanka wax magaalo astaan magaalo leh yaa ka jirta waatay ninkii tijiga sameeyay ku dhalay oo Cabdalla Diraar leeyahay
يحرر وقتها عرب أو عرب في جمجيس كأفريقيا سواق شيء وحال ماشى إلى أن راعوا المجال عن نص ميزان الدول شروطه كحلة لا شروط سوى واي أنت من أضيافي مثل بيقولوا إذا تجهين يبلغ وإلى شويسان واي حاسس كني لا كني أنا يبلغ وماشي المجالين يدي إلى دول وقولي الهيث قولي لا رهينا يبلغ أنا أقول لها نسوا أنت وانو كابلغ ببالي واي أضيافي لك سوق حيان حليبح halkii geedihii lagu googooyay libaaxii laga saaray lagu tagay 28 koodii intii ugu soo degtay dadku waa baadiyo ka carraabo oo ceelasha laga caboon weeyaan markaa astaan magaalo markaas uu yeelay marka isagana bixinaya magaca miya Daxbuur magaca odayaasha bixinaya magaca magaalo marka in loo bixiyo oo libaaxii laga bedelo ay marka odayaasha garteen waxa la tagay toga dhagaxyaan waaweyn baa toga dhixisa ku yaala oo inaad aragtay in kala mid boondo laga talaabo iyo toga waxda dhaxmarto dhagaxyaan waaweyn inta fadhigana leeg oo toga dhaxyaala arkaysa dhagaxyaan kale magaca laga soo qaatay dhagax buurta dhagaxyaan buurbuuran bay leedahay taasi waxa weeye adeer tii magaaladu ay ku asaasantay iyo taariikhdeedii hore adigu markii aad garaadsatay magaaladu muuq sidee bay lahayd magaalada ay dhowr iyo 20 kan degeen دولة لا تمكن كاس عارفين إن العد يوحل كذي وحواجة أشين وحل يسود دورية مويان سومالي اللي البحرين كانوا كتبوا جاركيسة دورية يدور بقى لو بحيل هاي يدور وي وأرابها مركز هالكانوا كبحي يدور وي وتكون مركب بعشرة أي كينان سوق إيو حركة إيو سامي قادان تمر إيو در إيو بريس بي كينان أنا لا أقولين العد مركب ما كان هيسو أراب سالك بدنية فوحة يمرملك إيو حركها إيو سوقها إيو حولها نور بقول إيو حقا لك حينيا حقا بدي عضان لك كينيو يا هرقيسي بالبركة ومركب هاشينكي يتمرتي إيو مركي لحلين يلفتي سيو وحيو دم لك إيماني ودن دولي توتول عقد دولي أركو وحلو كيس مني المركة مثل تاريخ لا كبعدي مركي سان قطي حر مركا تقال كي عدوى إثيوبيا هاي كل جوليستي يا حر سوق قاعد يكون سديد بقى سقاش هي تدوادي باي حر إثيوبيا سلم ملخ دولي أبسينيا واي يوم ملخيني مركز ودن كان دولي وأكواس سكان يعني القريان دولي أنت كهرباء يورو لما تسوقتو وحافظكيو دولي هنا متسوقان قبائل كان كنا نوران بتشوي كنا نوران بتشوي قبائل وقبائل نقل سكوا حكومة دولي تكون وقبيل وياي كان عسكانا بدأ بربلاء يهرجيسا وعشرة على كي مريسا لا وحوا كلك في مركب مجاري ويكرتي وحكوا سوكر له وياش مركب وحكوا سوكر له واحد يجيب نقلام مترين والله سوكر له ترجع على كل شيء اسمه يا هالبلد شيء شاه يسكر وحنا العقوبة يبلاوي نكي بلاش بكون بلاوي شاه مركب ونكي عرباد هاي شاهي واي يا بلاش بكون بلاوي سيدتك اللوبرو واي وياش وحنا نوشين غيرها سيلة يا فلوس كمجال وش يشتري فلوس ليلا عيسى عبد الله هاي فرسمة ده سليمي فرسمة مركزها فلوس كشيء ديسة يا وحوين معساحي عيسى عبد كسر بس والله دونه مو يمرك الله بشذية ما شذية حافظه يا أسكان أغراضه ولا شذية واي بالسوق مجالو بس مركها بالسوق مجالي يا تركي كسر كرني اسمه يا شو عبد الله مجالي سيده كرتي مجالي أنت على كده ما أنت واطي لا يفيها كرتبين اللي بعران يثبت في قاعدين جالية المركة عربتها مجالة المركة تبقى كل نقميسة من نكاسة يجونا سواقتين كاسة سواقتين مجالو كان عزوه سيدي كده جيري مجالو يوم قلافو أي عرب في كراسي أهان قبرتها المية تجين مجالو كلام مية تجين قلاف مجالو يلعبون والله يسأل كده تاني تجيلا إن مختلف مجالة دقحبور مركز ديجان كان صومالي ده هيكتو مجالو يكلكوا يلا maxaa ugu weyn ay kaga duwan tahay baad oran leh waxay kaga duwan tahay xagga waxbarashada ayadoo aan dawladda iskuul ka furin yaa waxbarashada waxbuu laga furay Sheekh Ali Suufi
مدرسة كفري إثيوبيا سكول كمان فلان إنجليزي تيارنا ما إيمانين كلها بحياتها يخرج وين عرب ساعات تبدي أتشني بقى يخرج وين مقالين كذا بحكوا أساس من قبيل إنه كده يحبوه عرب يحيى صومالي ذي يقبلون أوجدين كده قبل كذا ورير في أفرير في جنين ويوجد يحبوه تبتدي بقى مويان بكعاس موياني مقالة الصومالية ديجان كنا كنت هذا وسيد يحبوه أي قبلوا الصومال ولا شيء ولا يريد متشت هذا هنيو وأنا كبد وين مقالين كوكالون إن وحلي شجينة خلين حوج لك سوق هذا تي أنت أتكعنتي هوله جبني بدون كها قرمت كوا بلود كوا واحد بلوني وجبني بدون كي يقولوا إلا جو خضروات هي دور كباهي عرضي أنا وحمل شوبة يعني أور أساسنا دنيرو دنيرو وجدين اللي ده أور كيسان المركان ودنيا واحد وجاني المجع قبيل ويهي ورياض صدق لبعض في هالجن كسو وديوان ورئيسنا وحي نوش يجين إن لو أركي مجع غير واتي أنا ما كيبي شيء مدني من قبيل شيء معي وين يحني مجع يبان بدله ومحاكم بدله ورياض واحد يوسف صدق لبعض كي هالجن كمركم خالد ظاهر بالله إذا تبهد حرين تقبلين أي حاجة أفر شيء سجاري شنت سجاري يقول هي رجع أنت إيه خيرون ولا نقضي ورمح أو حتى وضنك أي حيل ساسا كقاطنه طمال وضنك مين كساري ما ولا ليه ومحيل له دي بنواين ما عينه أنا هنا يعني وكي غير كنا يوم يا شيء يعني وين بتلبيه وما على حرية ما تبغى حرية هي ما عرفت واحد كي يبان شوقي يكي شوقي شنيله يكي محي شوقي قاشام شوقي أي صور كان دلال المحل بحذير مركها أنا لك مرة محل دنيا الصومالي الولد بان لبحني شبهدي سبب وحيث بدون طاقة كنارتي شبهدي حرية الصومالي قلبي أنا ويا جروب عن وطاو مركا رغاق ردي وجامين يجي مركي حيل ساسا لقب طبعا حمر كسر وجهنا هكذا أروح يوان هكذا أساس نحن واطي أروح يلبسي والسيد يكسر تجلي سبرك الدولة دي من قصة سو ما يشيرين لو أندرجراوند ويان وحنا اسمه شيء نوع ثاني ما تشيله دولة دي سياد بري مركا وين نقد وثي قار وين أفطوب شيء إن مركا واحد جعنتي إذا كبحه أنا مركا أور أي دولة الصومالية أي تاجر أقول لكن أنا أساسين وجعنتي سراء أنا كل هذا بنقولينه هذا كان كنبو واطي أنا خصني سدح لي في كدولينه موقتي دولة ما نقعد بدينا نقص سياسة بدنا نقعد بدنا waxay sameysay ragganagii ururkii aanu ka mid bay ogaatay way xaraysay jawaab bay ka dhigtay way tababartay halkan annagu marka joogno oo halka inuu halka ka bilaabmin doonayna halkan uu ka bilaabmo iyo soo saartay kuwii ay tababartay oo maxamed sallallahu alayhi wasallam waxaan markii intaanu istiin lahayn aan baxano ayagii aan tagno fikradii aan ka bedelo waan baxnay ayagii baan galay tababaraan galay aga warbaan tagnay ciidan baan waxaan kala soo noqday inuu jooga meeshan ku qolati la yiraahdo baabili ka dagaalanaa shubhadiya Soomaali galbeed yaan ciidan la soo noqday waxaan garan waayay markii calanka Soomaaliya la saaro halkan Itoobiya ka baxday calankii Soomaaliya ma calanka ku jabadaan macaan saaro way dawladda la saaro kii dawladii Soomaaliya halkaas aan iska bilowday dawladda iska dhacnay waxaan dawladda uu ka qaada lama arag واحد يقول خد عينه معها يا شبهد بان معي تبى تقولي يسكت عني هذا قبتها ليجي شبهد ما راعي دجال من الحبة كودي اليوم تبى المركز ما حد أسكر ما مركز ما يدوش بهذه سيجينا أيجينا ما ينسى ريان معي وين أسكر نقضي بالي جورت مركانه دجال كده دوي حي يعني أسكر بعد نقول سنة نمبر بالقى هذا سكال بعد نقول صار وسكال محل نقول نقضاه من البرمي الثري الملكية شبهد كاس أنا هاي واد نقونيسا ما نقونيو ciidankii ma la soo noqday ciidankaagu intuu leeyahay markaa ciidanku markaa guutaanu ahayn saraakiil Soomaaliya dusha naga haysta anu markaa jabhada hoosta ka xukumo u baanahay jabhada ama ciidanka marka ciidan la boqol gaariyan la soo noqday waxa la yiri xoreyn buu galayaa dawladda Soomaaliya ka saaraya maxay dib u goosanayaan wax ogaadinayay gooyeen dawladda ogaadinayay bay dhisanayaan
hargeysa aanu maxbuus markii la geeyo waxa Soomaaliya waariye waan hal yiriglaatay ninka calanka hal yiriglaatay way ما نيجي على كهال يشيني رجته ألا يجي الشعير كذا وين يذكوا بين بالين هذا هل يجي يريك على كوسب وعلى كيس صبري هو حنشري على نشري مو كذا أشكر نقول ما يشتري وين إن لكن هذا سؤال كله كويتي مختلف إن markii hore ee ama xamar tagayseen ama leeydi ka soo abaabulayay ee ka soo jabhadaynayeen fikradda lagu wada socday miyaan ahayn in Soomaali galbeed la xoreeyo oo deedna ay Soomaali kaga mid noqoto hadii ay socoto may أباب الخليجي أنك عن بلوني وأنا لقيت حقول واحد الحريجي نوع عن أنك مركا حيل فاسة ولا قبضي المركا أباب الخليجي بصير صعبه وإثيوبيا بديه وكسر صعبه وهالك كسر صعبه وصوماليا سلاكيليا عسكري الله في أهالين يا هالك لقى النقطة كبعد وقت كان مثلا وضوء الغادي كرتان هلقل أي نوم وقتيل وضوء القانون مركا قشان أنك عرفيها لكن فكرة داسي يعني إن أنا كنت شري سوميدين وجين مدحدي Soomaaliya bariga ka talinaysa markaan ma aan ogeyn halkan مثلا كيف Soomaaliya ku wadiyo su'aal ah Soomaalidu dhaqan bay leedahay hadii la qaado waa laga dabarmaa waa lagu dhintaa waa la soo dhiciyaa mutalkii waa wadayeeshan ninkii un baa yeesha markaas ay igu jawaabeen ninkii un baale ninkii un baale ay igu jawaabeen yaa saasoo kala tiimbaan أنت سن مذيبان. واحد الله يبارك يقول لك صور عرض على رجال. يعني كيانينا. مختل عبدي أديات بعض ما هتصنت. بعض ما هتصنت. شرف بيتين نقولنا. أضام. دنيا واريو سو عهديو دغفور إن dadkii hadda uu ka sheekeynayay Maqtal Cabdi asalkoodu uu Yemen ka soo jeeday ee asaaskii magaaladan iska lahaa waxa tafiirtoodii ka jooga Ridwaan Axmed Saciid Ridwaan aad iyo aad baan ku salaamayaa aad baan kaaga qaaday Cabdi adigu waxaad ku dhalatay magaaladan miyaa Dhagaxbuur magaaladan Dhagaxbuur baan ku dhashay waxaan 1964 Dhagaxbuur baan ku dhashay marka jiilkii misaad baad ahayd qoyskiina annagu qoys ahaan marka la yiraahdo Reex Axmed Saciid anoo Axmed Saciid baa la yiraahdo qoys ahaan 12 baanu ahayn 12 kaayagii waxaan ahay kii sideedaad intii kale way wada waaweynay kullina waxay ku dhasheen Dhagaxbuur kulli Dhagaxbuur bay ku dhasheen wax meel kale laga dhashay ma jiro hal qoysna waanu ahay imika markaa dadka asalkoodu Yemenida ahay magaaladan Dhagaxbuur asaaskeedina wax ku lahaa deganaana imse qoys baa ka haray imika dad aan tirin karno waxaa jooga saddex qoys saddexda qoys oo kamid ah Reer Baacashuud iyo Reer Xaaji Cabdo oo ka soo jeeda Reer Xaaji Maxamed iyo Reer Axmed Saciid saddexda qoys baa ka jooga magaalada Dhagaxbuur Reer Reed oo Cali Macfuudiya ah gartay marka intii nabadda imika ilka castada ka tirsantiin miya annagu ilka casbaanu nahay Dhagaxbuur baanu ku dhalanay ilaa maanta Dhagaxbuur baanu degannahay dadka ilka castay waxaanu nahay magaalada Dhagaxbuur aan loogaba sareyn yaanu ka mid nahay baa mushtariga waaweyn magaaladana saan ka war hayaad ka mid tahay hoteelkan aanu degannahay adiga iskale bal hadda waxaad ka warantaa markii Dhagaxbuur aad garaadsatay adigu sidee ahayd Ridwaano والله هدي عند Dhagaxbuur ka sheekeeyo Dhagaxbuur wadan colaadeed bay iska ahayd waligeedii aleedba wadan waxay ahayd waxaan ku garaadsanay un iyadoo oo xabad u dhacayso nabadgelyada maanta un baan noogu horeysa ganacsiga ay mudayar oo kooban un ka mid ahaa baan shaqada bilaabanay muddadii yareedna si fiican iyo shaqadu noogu baxday kolkay nabadgelyo la helo un bay shaqo horta socon kartaa nabadgelyo kolka la helo un baa moogtahay aad shaqay kartaa muddo yar oo gaaban ونمك فركتورثا يا نبتقلي عنه هلاي أنتي هور وحلو ترى دقائق Dhagaxbuur يجيجا ويكلا حدني كان بوي باللو سعودي كان بوي تضوع عشرة سداد كله بيلو سعون جري بام ده تاجنين أو بشي بمر لبحي جري ما جاري كسب بحاج جيجا إنه لبا أسبوع أما بيل نجا قاتين Dhagaxbuur ما ده يا دعيرتي ما تاكين يمركا أولاد ودك لما مريتين ودك هو وده حدنا ضد جبهة جري ودك حوق باللو سوى مرجع عيدك درجي إلى حيلة اللاثة وإحنا بتقوليه كجري مجرو. ورضوان ومركها
sidee nolosha ku suurtageli jirtay maxaa qaban jirteen tusaale ahaan ku shaqaysan jirteen horta wallahi noloshu cidhiidhi bay saan ku soo gaadhnay aabayaashano dad beeraley ah oo wadanka iska degan bay ahaayeen iyo xoolo dhaqato ah beerana waa la qodan jiray iyagoo aniga beerta meeshan imika aqalkan ka dhistay hoteelku yahay beer bay ahayd beerta anaaba xitaa soo gaadho qodi jiray intaasaa lagu noolaa waxaa ka soo baxa beerta iyo labadaas ayuunbaa la quudan jiray baa la quudan jiray nolol noocaasaan ku noolaynba marka isbedel dee la yaab la ka dhacay magaalada miyuu waalan yahay isbedel iyo maaha dee waxa ka dhacay maanta waanu neebsanay adduunkii baanu ka mid noqonnay dadka iyagan imika maanta universal inay dhagax buur ugu waraysato waxyaabo laga heli kara weeye alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaahay baan ugu ridwaano af carabiga ma ku hadashaado walaalo af carabiga aad uma aqaan anigu midmid waan jabsadaa laakiin af carabi caadiya nin carab hadduu imika iga soo horbaxo dee ma garanayo laakiin dadka Soomaalida aynu ku dhex jirno nin af carabiga yaqaanaan ayaad qoran aad iyo aad baan kuu salaamaya ridwaan waad mahadsantahay walaal aad baad u mahadsantahay boqolkiiba boqol walaal intaasna waxaa ku dhan barnaamijkan oo idinka imanayay magaalada dhagax buur ee magaalo madaxda gobolka Jarar ee deegaanka Soomaalida inta barnaamijkan oo kale aynu ku kulmayno toddobaadka dambe haddii aan la yiraahdo waa Cabdisalaan Hereri oo idinku dhaafay nabadgelyo dunia wariyo so ahediyo dhagax buur درجة بلانو نقول صباحي أو بكا بتاعي وروح له مسلي أنا وحن كتابة بلاينا وداقنا عيدتي بعشبة مسلي أنا وحن كتابة بلاينا وداقنا عيدتي بعشبة